إيشا صوت علاتيو ناجو كما سيرتيو جعل سو بندقتيو إيشا كما سيرتيو أنيقا كما سيريو ميدكلا كما سيرتيو هوين سيدا آن أنهي سيكي وان جعلنهو إنك الصوماليات سيبو قالي نوغي هاي أمتو ديفاني ويغا CK family كلية ayaa samayn karo reaction qosol wata farxad wata iyo heeso ayagu ay leeyihiin ay soo bandhigaan iyo wax walba oo macnaha qoftan jag waaye qoftaaba jag ku noqday wallahi nooc barafuunka loo soo qaaday ayaa suba qof bil aadana sameeyaba yaa laga heli karaa CK family kaliya annaga la soo bin karno ninuu jacayl wado oy ninuu jacayl wado inina naag wadaba waa laga hor leexdaa abay indho qurxay meesha joogtaa ma imaada haddaan ku imaado CK toos ma yaqaade nawada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودواد أصحابتنا قالوا ميل كستا جوكتين كسودواد channelkeena عتيا sida awal hore nooga barateen barnaamijyo cusub iyo waxyaalo cusub waxaan maanta halkaan maaso ama amaan ugu hibeynaya walaalkay King CK ama boqorka raashinka ama boqorka raabka ama boqorka YouTube-ka ilaahay baa boqor laakiin macnaha King CK ama CK family ba marka maasadana waxay ku bilaabanaysaa sidatan haween sida aanu nahay CK waa jecelnaho inanka Soomaaliyeed sibuu qaali noogu yahay iisha soo jeclaatayo naaju kama sayrtayo jacayl soo bandhigatayo iisha kama sayrtayo aniga kama sayrayo mid kala kama sayrtayo haween sida aanu nahay CK waan jecelnaho inanka Soomaaliyeed sibuu qaali noogu yahay saaxiib waa socotayo Soomaali dhan baa ku jecel farxadda aan siisid baan CK kugu jecelnahe saaxiib magacaaha jiro amto diivane wega CK family kaliya ayaa samayn karo reaction qosol wata farxad wata iyo heeso ayagu ay leeyihiin ay soo bandhigaan yartiya tabaye waxa aan ku taabay shacaylka yadiisa wax walba oo macnaha qof bil aadana sameeyaba yaa laga heli karaa CK family kaliya annaga la soo bin karno okay asxaabtayda qaaliga maasadeeni ama dhiirigelinteeni waxa maasadaan igu dhaliyay waxa waaye macnaha wax badan oo aan CK ka aragnay farxad badan oo uu nasiiyay qalbiyadeena oo si dhaw oo macnaha u hantay ama uu macnaha uu u degay ayaa igu dhaliyay maadaama sonqaadkii hadda la soo dhaafay aad ogeydeen macnaha rekoorka ama jabiyay ama sida uu dadka masaakiinta oo maxaa la dhihi jiray tabaalaysan oo wadankii jooga oo dhibaatada ula qaybsaday sidoo kalena mar walba macnaha caawimaad ama magaciisi loo soo baahdo mar walba dadka garab u siiyo sidoo kale guri walba gashid waxa ka daaran CK bari hore dadku waxay daawan jireen filmaanta Hindida laakiin hadda ma sha Allah waxa guri walba ka daaran ka gashid ama telefoon walba qof dhalinyaro haysto macala hooyooyin waato aad ogtihiin sida ala socotiin oo kale inay macnaha maamooyin ay gabdhahooda u hibeeyeen ama ay ka siiyeen ayagoon wali life u arkinin ay ka aamineen wanaagiisa iyo waxa qabadkiisa ay macnaha gaareen heer ay gabdho u hibeeyaan ama ay gabdho ka guddoonsiyaan social media dhexdeeda
sidoo kale baraankii maalintii dhaweyd iyo wixii hawlihii socday anagoo arooskiisa isku diyaarinayno aad iyo aad ugu faraxsan haddana sheekada baraankii nagu noqotay taas buu nagu bariiqatay marka waxaana leeyahay insha allah mahadsadaan iga guddooma sidaa u tihiin team CK ama CK family insha allah meel kasta oo joogteen team CK ama CK family waxaana leeyahay farxad ku waara one love ayaan leeyahay insha allah halkaas hawsha laga sii wado waa ninka kaliya maanta qof cadaan naga barajeyn karo asagoo ku hadlayo luqada Soomaaliga macnaha YouTube haday noqoto iyo fanaanimo haday noqoto ama waxyaalaha la soo qaad haday noqoto si walba macnaha qofka maanta naga barajeyn lahaa waaye dadka cadaanka ama dadka madowga ama Afrikaanka marka waxaan leeyahay insha allah halka laga sii wado taageerada CK-na la sii laba jibaaro sidoo kalena waxaana leeyahay videogan hala sii gaarsiiyo CK wuxuuna ku gaari karaa insha allah adigoo sii share gareeya saaxiibkaaga kuugu dhow iyo midkaaga ka dheerba u share gareey WhatsApp Facebook email Instagram meel walba u share gareeysi aad iyo aad ba u mahadsantiin sida qaaliga oo sida quruxda badan aan noolba ila socotiin noola socotiin barnaamijyadeena u lay gareeysin u share gareeysin thank you so much ayaan leenahay muuqaal la mid inta ku kulmi doono asxaabteeda qaaliga waxaan ka tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh